qarax awood badan ayaa lala beegsaday masaajid ku yaala magaalada caasimadda dalka Afghanistan ee Kabul. qaraxa ayaa dhacay intii lagu jiray salaada Jimcaha oo masaajidka dad badan ay yimaadeen. wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Kabul ayaa ku warantay in tiraba 4 qof lagu dilay weerarka, halka tiro intaa ka badanna lagu dhaawacay. war ka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in dadka la dilay uu ku jiray imaamkii masaajidka Shirshah al-Suri. waxay intaa ku dartay in ciidamada ammaanku ay la wareegeen goobta iyadoo dhaawacyada loo daadgureeyay xarumaha caafimaadka ee magaalada. weli ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxan khasaaraha dhaliyay, balse waxa xusid mudan in weerar kale oo bishii hore lala eegtay isla masaajidkan ay mas'uuliyadiisa sheegatay kooxda Daesh oo farac ka mid ah ay ka dagaalamaan gobolka Nangarhar ee bariga dalka Afghanistan. masaajidada waaweyn ee ay gacanta ku hayaan culimada aan la safnayn kooxaha hubeysan ee ka dagaalama Afghanistan ayaa inta badan lala eegtaa qaraxyo iyo weeraro kale oo hubeysan. weeraradii toddobaadadii la soo dhaafay ka dhacayay gudaha Afghanistan ayay badi sheegatay kooxda Daesh, balse waxa awood xoogan ku leh Afghanistan kooxda Taliban.